Halkan waa Qatar, waa barta lagu qaban doono bishan aan ku jirno 20keeda maalinka Axadda 7 fiidnimo uu ka baasmi doono World Cup-ka dunida. Mundiyaalka dunida waxa ay Qatar ku guuleysatay 2010 markaas oo ay nasiib u heshay. Waxaana kharash ahaan ku baxday garoomada Qatar laga dhisay ku dhawaad lacag lagu qiyaaso 600 bilyan. Garoomo aan inaba caadi ahayn waa laga dhisay. 2022 FIFA World Cup is Qatar. Haddaba Qatar ma aha wadan dhaqaale ama dollar loogu faanayo ma aha. Waa wadan dhaqaale badan haysta, waana wadamada ugu dhaqaalaha badan caalamka. Haduuna kow ahayn waa kala labaad. Marka cidna dhaqaale ahaan ugama cabsanayaan dowladda Qatar. Marka warbixin waxay ku soo saareen in dadka khaniisiinta aan loo ogolaan doonin in ay Qatar dhexdeeda waxay doonaan ku sameeyaan. Walow ay hadday yimaadaan xataa waa inay si private ay qarsadaan oo xataa wax calaamad dadkaas muujinaya aan banaanka la iman karin. Totally garoon iska badaayay. Sidoo kale gabadha qaawan ama gabadha nigiska inta xirato suuqa dhex wareegaysa in iyadana la xiri doono ama la ganaaxi doono. Waxa ku soo haray dadkan farshada cabba ama cabtoyda khamri inaan lagu cabbi karin wadooyinka, meelo gooni ah oo waliba hoos oo meel ay dadka muslimiinta ka dhoweyn, masaajid ka dhoweyn, meel loogu talagalay inay inta ku cabbaan kadibna ay hoydaan. Waxa ku soo hadhay hoteelada heesaha markii la dhageysanayo. Tusaale haddii eedaan uu socdo qofkii isagoo hees dhageysanayo lagu arko ama kor u daloco, qofkaasna waa la ganaaxayaa ama waa la xirayaa. Waxyaalo badan oo ka soo horjeesaday dowladda Qatar bay maalin dhaweyd soo saartay markii ay World Cup-ka ka harsanaa hal bil. Markaasay ka qayliyeen wadamada reer galbeedka, Ingiriiska, Faransiiska, Jarmanka. Xataa Jarmanku wuxuu mamnuucay ama uu adkeeyay muwaadiniinta Jarmanka ama dadka wadanka Jarmanka joogo oo dhan inaanay tegi karin wadanka Qatar toos ilaa ay intay wadan kala tagaan ay halkaa kasii tagaan. Kadib waa lagu adkeeyay processkii la mari jiray baa lagu adkeeyay. Waxaa la dhahay waxaasaa kaa dhiman, waxaasaa kaa dhiman. Waxyaalo badan baa lagu xirayaa qofka si uuna u tegin. Xataa waxay sheegeen mararka qaar Faransiiska waxaa la sheegay in lagu daawan doonin magaalooyinka waaweyn oo kale. Waxaa jira screen baa jira lagu daawado oo laga sii daayo World Cup-ka. Waxaas oo kale inaan laga sii dayn doonin bay sheegeen. Laakiin waxaas waxba ka mid ah waa mundiyaalka dunida. Way imanayaan malaayiin qof baa wadooyinka soo baxaya oo jooga hadda iyadoo Axadda uu bilaamayo. Malaayiin qofaas ugu sii qulqulaya, malaayiin baa sii joogta. Aad iyo aad bay u badan tahay. Marka reer galbeedku aad bay uga soo horjeedaan. Qatarna dowlad yar oo gaajoonayso oo dollar lagu cabsiin karo maaha. Waa wadan dhaqaale leh, waa wadan aan cabsanaynin, cidna ka cabsanaynin. Marka wuxuu yidhi annagu dhaqankayaga iyo diintayada u bedeli mayno 28 cishood nala joogtaan. Fadlan ha la ixtiraamo dhaqankayaga iyo diintayada. Maalin dhaweyd uu sheegay xataa maalin dhexda ahayd oo la weydiinayay amiirka Qatar, annagu cidna wadankayaga uma diidanin buu yidhi, balse laakiin hadda markaan annagu nimaano wadamadiina waan ixtiraamnaa. Dhaqankiina waan garanaynaa, waan ixtiraamnaa. Dhaqan waxaa u leedihiin, annaguna saas oo kale diintayadu waxayna ogolayn ixtiraama, dhaqankayaga ixtiraama. Intaasun baan annagu nidhi. Cidna wadankayaga uma diidino. Cid walba wadankayaga wuu furan yahay, waad iman kartaan, wadankiina waa taageeri kartaan si xornimo ah.
garoomada waa joogi kartaan balse laakiin xadgudub iyuuna dhicin. Intaas ayuu hadalka kusoo gabagabeeyey amiirka Qatar. Balse laakiin reer galbeedku ilaa imika aad bay uga dhiidhiinayaan. Marka uu koobka adduunku bilowdana dee kulley dhib badan baan arki doonaa. Waxyaalo badan waxbaa dhacay, maxaa lahay qof baa wax sameeyey, waxyaalo badan waa arki doonaa insha Allah. Maalinka Axadda habeen 7 fiidnimo markuu qaaradda Afrika yani geeska Afrika markay saacadu marayso ayuu bilaami doonaa. Inkastoo aan waxba kala horeyninba Qatar. insha Allah mawduucan wuxuu ahaa mawduuc yar oo iska kooban. Waa inoo ya videoga xiga insha Allah.